توسا ربي أسجود بريا ربي أسجود ركوعا ربي أسجود بريا ربي أركوع سجودا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، waxaynu walaalayaal qaadanaynay khudbadihii ku saabsanaa arraqaa'iq in qalbigeena aynu debcino, qalbigaasoo wax badan oo ku xeeran maanta la qallafay, oo bal aynu isxusuusino waxa inaga dambeeya waayaha adag ee aynu rumaysannahay, waxaynu se mudanayno masiirkeenu noqonayno aynaan garanayno masiirku noqonayo. alwasiya wa xukmuhaa fi lislaam, dardaaranka iyo islaamku sida u dhiiriyay baynu soo aragnay. waxaa kaloo nebigu uu casharada inoogu daray la qaadanayo geerida in la isxusuusiyo, qofkuna uu xusuusnaado. khudbadaha jumcahana waxyaabaha u muhiimsan bay ka mid tahay xusuusta ilaahay is-hortaaggiisa iyo aakhiro. sidaa daraaddeed buu rasuulku sala allahu calayhi wasallam khudbadaha qaarkood ka dhigi jiray suuratu qaaf oo ka warramaysa muuqaalka aakhiro iyo suurta jannada iyo naarta iyo geerida. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka kariimkaa markuu dadka waaninayo aad buu uga warramaa geerida. siyaabuhu qur-aanku u waaniyo dadka kuwa u badan buu ka mid yahay. sidaa daraaddeed buu nebiguna calayhi salaatu wasalaam ummadda la hadla wuxuu uhi akfiruu dikra haadimi alladaat aw haadim alladaat. dhadhan yar baa ku haysan adduunyada, ka idinka jebinaya idinka burburinaya xusuusta. imaamu alqurdubi waxa uu leeyahy raximahu llah, qaala alculamaa qowluhu calayhi salaatu wasalaam akfiruu dikra haadimi alladaat. hadalkaa uu nebigu xadiidkaa ku sheegay kalaamun mukhtasarun wajiiz, waa hadal kooban oo gudaweyn. waa jamaca tadkira wa ablaqa fi lmawcida, uu ku xeel dheeraaday waanadii iyo wax sheegmadii. qofku haddii uu xusuusto malagga xusuus dhaba, ma ilaawo diyaargarowga, mana ku mashquulo wixii ka leexinaya hadafkiisaa uu ku socdo, howlgal qiimalena wuu la yimaadaa. ilaahay baa wuxuu uhi kullu nafsin daa'iqatu lmowt. kol hadduu shaygaasi naf leeyuu noola yahay, geeridaa wuu dhadhaminayaa, insaanka kuma gooni aha. nebiga calayhi salaatu wasalaam nin baa istaago su-aal aad u muhiima buu weydiiyey oo mafhuumka iyo aragtida dadka saxaysa. waxau uhi man akyasu nnaas wa axzamu nnaas, dadka yaa u fariidsan oo u go-aan wanaagsan. nebigu wuxuu uhi akharuhum dikran lilmowt, rag iyo dumar mid kasta ha ahaado, madax iyo raciyad, culimo iyo caamo, qofka malagga aan ilaawin, geerida aan ilaawin. wa akharuhum isticdaadan lilmowt, dhimashadana qofka ugu talagala ee u diyaargarooba. ulaa'ika alakyaas, kuwaasibaa ah kuwa fariida ah. fariidku dadka wax kale u yaqaanaane, kuwaasaa fariida ah buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam dahabuu bisharafi dunya wa karaamati alaakhira. sharaftii adduunyadana way qaateen oo gobonnimay ku dhex joogayaan, aakhiro wanaaggeedii iyo maamuuskeediina way heleen. in la xuso geerida waxa ay leedahay fawaa'id, faa'iidooyin badan baa ku jira. faa'iidooyinkaa waxaa ka mid a waxay dhiiri gelinaysaa inaad diyaargarowdo. kollayba safarku waa lama huraan, kollayba safarkaa laga soo noqon maayo. ma ogid gooruu kugu iman doono, maxaa kuu yaalla waa inaad diyaar ahaato, alaabtu kuu xidhxidhan tahay. waa safar lama huraana, oon ogeysiisda lahayn, alaabta waa kuu xidhnaato. taa waa laga faa'iidaya. waxaa kaloo laga faa'iidayaa yuqasiru alamala fi tuuli albaqaa, inuu qofku isku qanciyo muddo dheer inuu joogo. taana way ka soo afjaraysa. oo asbaabulghafla, qofku inuu is-ilaawo oo adduunyada muquurto, asbaabteeda waxaa ka mid a tuulul amalka waxa la ydhaa. adigu hore u dhiman maysi, waad caafimaad qabtaa, waad da'yar tahay, waad iska ladan tahay. waxaas intuu shaydaanku kugu akhriyo, ilaa yaciduhum wa yumaniihim baa ilaha wuli, yididiilo badan buu shaydaanku siinayaa qofka. yididiiladaana inaad malagga xusuusantahy way kaa soo yaraysa. faa'iidooyinkeeda waxaa ka mid a yuzahidu fi dunya wa yurdi liqaliili minha. adduunyada
ayuu qofku ku dhex saahidaya inuu ka saahido lama ogola qofku adduunyada iskaga tago laakiin isagoo gacanta ku hayo shaqaynaya oo maamulaya inuu is-og yahu feejigayo anteenooyinku u taagan yihiin weeye oon u daboolnayn wax yarina way qancinayaan qofkaa sidaa darteed baa markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkan aynu soo maraynay kolkii uu asxaabta u sheegay waxay ahayd kolkuu soo maray bimajlisin yadxakuun majlis iyagoo asxaabtu meel fadhiyo qosolka yaro badiyay buuhi akiruu dikra haadihi min ladaat malaga iyo geerida xusuusteeda badiya ayuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam faa'iidooyinkii uu sheegay waxaa ka mid ah fa innahu maa dakarahu axadun fii diiqin min alcayshi ilaa wasaca mar kastuu qofku malaga xusuusta hadduu nolol cidhiidhiya ku sugan yahay wuu nafisayaa hadduu buko hadduu duruufaysay wax kastoo haysta markuu dhimashada xusuustay in laga dhaqaajinayaba waxaa haystee ku dallacani uu ka degaya walaa fii sicatin ilaa dayaqahu calayh hadduu qofku isilaaway oo barwaaqadii raaxadii adduunyada uu isku ilaawayna markuu geerida xusuusta iyana wuu iska dabcinaya waxaa ka mid a faa'iidooyinkiisa yuraqibu fi alaakhirati wayadcuu ila daaca jannada ilaahay buu qofku jeclaanaya waxa lagu mutaysanayo daacada ilaahayna wuu ku dadaalaya faa'iidooyinka waxaa ka mid a yuhambinu cala alcabdi masaa'ib addunya cudurrada waxyaabaha kuu fududeeyay ka mid tahay faa'iidooyinka geeridood xusuusata waxaa ka mid a yamnacu min alashri waalbatir waltawasuci fi ladaati dunya kibirkuu ka yareeya qofka ma kibro qof xusuusan in loogu iman doono tan oo malagu maalin maalmaha ka mida uu ka qaadi doono faa'iidooyinka waxaa ka mid a geerida inaynu xusuusnaano yaxudu cala atawba waistidraaki maa faat inuu qofku towbad keeno inuu geerida xusuusan yahay baa sabab u ah haddii kale waa isilowsan yaho towbadaba xaggeeda uma jeedo yuraqiqu alqalba wayudmicu alcayn wayujlibu baacitha addiin wayadrud baacitha alhawa qalbiguu dabciyaa ishana waa irmaaneeyaa inaad geerida xusuusan tahay oo qofku inuu qalbigiisu dabacsan yahay waa inuu ilaahay u dhow yihi qalbigiisu inuu qallalan yahayna waa inuu ilaahay ka fogyahay bay sheegaysaa fa ina abcada quluubi annaasi lirabbina alraxiimi qalbun qaasi qalbiga addoommaha ilaahay ka ugu fogo waa ka qallalan ishii inay qoydaana oo ilaahay daraaddii maruun qofku u ilmeeyaana waa ragannimo weyn maadaamuu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam sidaa ahaa baacisu diini wa baacisu lhawaa baa jira wax diinta kuu kiciyo wax duunyada kugu kiciya waxyaabaha diinta kugu kiciya iyo daacada ayuu ka mid yahay tawaaduca ayuu badiyaa inuu addoonku ilaahay isu yareeyo waxa uu yareeyaa in geerida aynu xusuusannaa yadcuu ilaa silli sakhaa'im wa musaamaxati alakhwaani wa qabuuli acdaarihim inay dadku iscafiyaan oo ay isa saamaxaan oo naxliga iyo nacaybshiyaha dhexdooda ay saaraan ay isu cudurdaaraan inay dhimashadii aakhiro iyo xisaabta xusuusan yihiin ayaa ka faa'iide ah haddii kale way isku sii taagnaanayaan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ummadda taasuu ku beeray oo uu ku tarbiyeeyey asxaabtiisa isagoo hor fadhiya oo wuxu sheegaya dabcan markuu asxaabta la hadlaya ummadoo dhan buu la hadlayaa wuxuu jeexay khad 4 gees oo isku xidhan khad dheerna sidaasuu uga dhex tallaabiyey waxau idhi kaa soo afjaree isku xidhani waa geeridii khadkaa dheere halkaa ka dhex baxayna waa amalkii iyo diidiiladii insaanka isagoo berri ama saadame ama bisha soo socota ku qoran safarka ayuu 10 sano iyo 20 sano ka fikirayaa wixii uu qaban lahaa markaa waa isma og ayaa warkiisu yahay ummadda islaamku waxay ku ijmaaceen isku waafaqeen buu leeyahay imaam al-Qurtubi mufassirka weyni calaa anna al-mawta laysa lahu sinnun macluum da' mucayana oo lagu dhinto malagu geeridu ma laha da' la odhan karo 60 70 80 da'daasunbaa lagu dhintaa inta ka horraysa dhimasho male lama odhan karo walaa zamanun macluum wakhti macluumana ma leh marad macluumana ma leh cudur laydhaa cudurkaasunbaa loo dhintaa kan looma dhinta ma kala naqaan qofka waa laga yaabaa inay qodaxi disho waa laga yaabaa cudurro loo arko inuu dhaqso u dhimanayo inuu muddo dheer la noolaado wadalika liyakuuna almar'u calaa uhbatin min dalika mustaciddan lidalik xikmadda looga jeedaana waxa weeye loo qariyey qofku inuu diyaar iska ahaado in saalixiinta ka mid ah baa dhaqankiisu wuxuu ahaa habeenkii gelinka dambe intuu soo baxaa buu odhan jiray alraxiil alraxiil
war safarkiina wuu idin sugayaa safarkii asaadkiisa qaata iyo sahaydiisa oo ilaahay u cibaadaysto waqtigan kaca markuu dhintay baa waxa codkiisii waayey amiirulmadiina ninkii magaalada ka madaxda ahaa waxa uu yidhi xaggee buu ninkii tegey sow kana aamusay waxa la isaga laftiisii baa safray qad maata waa dhintay markaa ninkii baa laba baydoo shicir u tiriyey amiirka ahaa waxa uu yidhi maa zaala yalhaju bialraxiili wa dikrahu xataa anaaqa bibaabihi aljimaal faasaabahu mustayqidan mutashamiran daa uhbatin lam tulhihi alaamaalu ninkaa isaga ahi waxau idhaahda safarkii baa jiraba isaga laftiisiibuu malagu awrka ku hor furay oo uu ku qaaday laakiin waxa uu malagu u yimi mustayqidan mutashamiran isagoo baraarugsan oo diyaar ah oo aanay yidhi diiladanna mashquulisa aana isaga mashquulin buuri waxa uu leeyahay imaamka la yidhaha atamiimi raximahu llah shay-aani qadacaa calaa ladati dunya dhadhanka adduunyada waa inay laba qofka ka yareeyaan dikru lmowt wa dikru lmowqifi bayna yaday illaahi tacaala geerida xusuusteeda oo malagga inaad ishortaagtood xusuusato iyo ilaahay inuu ishortaago addoonku labadaasi inta ay kuu dambeeyaan dhadhan ma badnaanaya buu waxaad mutaysanaysana aanad warka haynin iyo masiirkaagu wuxuu noqon doono dadkii saalixiinta ahaa ee wan wanaagsanaa ee adduunyada aada ugu dhex jiray si culayskeeda iyo mashquulkeeda iyo qafladdeeda ay isaga yareeyaan casharaday cubaadda iyo suhaadda iyo culimmada ka qaadan jireen buu ka mid ahaa deriskani imaamkii muslimiinta ee cumar ibnu cabdilcasiis la odhan jiray kaana yajmacu alculamaa fayatadakaruuna almowta waalqiyaamata waalaakhirata fayabkuuna xataa kaana bayna aydiihim janaaza culimmadiiya buu soo ururin jiray dadka cibaadada badan ee khushuucda ah ee cabsidoodu ilaahay xusuusinayso kolkaasaa laga sheekayn jiray qiyaamada iyo qabriga iyo geerida kolkaasaa ay ilmayn jireen iyadoo loo malaynayo in jinaasadii ay hor taallo ilaa xafiis buu joogay muran bani aadan buu ku dhex jiray maal buu ku dhex jiray waxyaabaha ay dadku aada iyo aada isugu ilaawaan iyo doodda iyo xadaafiirta ay leedahay waxaasay ku dabcin jireen imaamu daqaa'iq waxa uu leeyahay geerida xusideeda qofka badiya ukrima bihalaathati ashyaa qofka xusuusanayna qalbigiisa aanay ka baxsanayn qowlkiisana uu ku badan yahay saddex arrimood baa ilaahay uu ku maamuusaa tacjiilu tawba wa qanaacatu alqalbi wa nashaatu alcibaada qofkaa isagaa in ilaahay towbadiisa u dedejiyo isna waa la waafajinaya waana laga aqbalaya iyo qalbigiisu inuu qanco qaanic buu noqonaya qof raalliya iyo inuu cibaadada u yeesho firfircoonaan iyo awood badan saddexdaa cagsigooda ama dabarogooda ayaa lagu ibtileeyaa qofka ilaawo geerida taswiifu tawba wa tarku ridaa bilkafaaf watasaahulu fi lcibaada aw altakaasul fi lcibaada qofkaasi haddaanu malagaba xusuusnayn towbadna ma xusuusto ma yaqaanaba bilahan sannadahan ayaamahan talow goormaa toobad keentay oo aad ilaahay si dhaba ugu toobad keentay kuma raalli noqdo wax ku filan mar walba kordhida iyo ka siyaadidaa ku badan altakaasul fi lcibaada cibaadana uma jeedo ee waa cibaadadaas iyadaa xaggeedaba uma kaco xasanulbasri oo aada iyo aad dadka tusaale ugu ahaa mowduucan aynu ka hadlayno xikmadihii laga dhexle laga qoray waxaa ka mid ahaa ina hada almowta qad afsada calaa ahli nnaciimi naciimahum faltamisuu cayshan laa mowta fiih war nicmadan adduunyada waxa inaga ifsaadiyey oo inoo diiday inaynu saani u dhadhaminno malagga iyo kulaylka sakaraadka inaga dambeeya geerida waxaad raadsataan cayshan laa mowta fiih nolol aan geeri lahayn raadsada tani noloshan waxaa inaga dhabqinaya ama ilowsinaya dhadhankeeda geeridae nolol aan geeri lahayn oo tajannada ah raadiya culimada qaarkood culamaa u tafsiir waxay fasirayaan aayaddan suuratulqasas ku sugan 77 waa qisadii qaaruun baa ahaa nin kibray oo
dhan walba u ridoo dhaqaalo badan helay oo reer banu israa'iil buu ka mid ahaa marka waxaa hoggaamiyo halleeyey adduun badana uu haystay niman culimaada qaar dadku way qaybsameenoo qolo waxay lahayn yaa kaasoo kale yaa naga dhiga kaasoo kale ee muujiye wixii alla u dhiibay dee ku faanaya kaasoo kale yaa naga dhiga qolyana way waaninayeenoo waxyaabaha ay ku waaninayeen waxaa ka mid ahaa wabtaqi fii maa aataaka allahu daara alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunya wa axsin kamaa axsana allahu ilayk waanadooda waxaa ka mid ahaa wuxuu ilaahay ku siiyey dunyada aakhiro ku raadso beertii aakhiro ka dhiga adduunyada oo si aad midhaha halkaa uga goosato walaa tansa nasiibaka min addunya aakhiro u shaqaysa bay idhaha calafkaaga adduunyadana ha ilaawin markaasay culimmada qaarkood ku fasireen walaa tansa nasiibaka min addunya nasiibkaaga aad adduunyada ka qaadaysa ha ilaawin hiya alkafan qudnu lkafan bay idhaha nasiibkaa adduunyada uu qofku ku leeyahy waa kafantay culimmada qaarkood ku fasireen wax allo waxa aad shaqaysay kafan baad ka qaadanaysaa taa ha ilaawin hadda waxaan qaadan may sida nasiibkaa aad ka qaadanaysaa waa kafanta hiya alqanaacatu laa tabqi biha badala fiiha alnaciimu wa fiiha raaxatu lbadani undur liman malaka addunyaa biajmaciha hal raaxa minha bigayri alqutni waalkafani intaad u waalan lahayd adduunyada noocyadeeda kala duwan bal haddaba waxaad eegtaa dadkii dhammaanteed milkiyey waxa ay kala tegeen waxa uu ahaa in yaroo lagu duubay alasbaab albaacithatu calaa dikri lmowt sababaha keena qofku inuu geerida xusuusto waxaa ka mid a haddaynu geerida xusuusanayno wuu inoo dhib yaraanayaa cibaadadu iyo culayskay leedahay wuu inoo dhib yaraanayaa bacadka aynu fadhino qofku markuu si dhaba u xusuusan yahay waxa ka dambeeya bacadka uu fadhiyo 20 daqiiqo khudbadda uu dhagaysanayo ma dhibayso haddii dareenka geeridu uu ku weeyo aakhira si dhaba u xusuusanayo waxyaabaha dhib yareeya waxaa ka mid a ziyaaratul qubuur inaad xabaalaha soo booqato intoo dadkan iyo dunyadanba iskaga dhex baxdo caawa ama salaada hore ama fiidkii bal xabaalaha soo booqo ama kuwii saaxiibadaa ku jireen ama waalidkaaga ama ummadda islaamka nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi xabaalaha booqda aakhira idin xusuusinaya waxaa ka mid a dadka dhintay oo aad maydhidooda ka qayb qaadato siiba ehelkaaga waynu aragnaayo waxaad dadku inay ku dhimanayaan qof dhintay hadday eegaan ama maydhaan way ka cararaanba wadaadkii qaxwaa qaadanaya u doona bay idhaahdaan ha maydhee islaantana islaantii aayad kursida taqaanay u doona bay idhaahdaan waxaad mooddaa inuu qabsanayo oo ay ka cararayaan qofkani siduu u qomboobay ee u qallafay ee u baktiyey waa inaad eegto oo adigu aad ka qayb qaadan karto maydhistiisa si aad ugu waana qaadato مشاهدة المحتضرين وهم يعانون سكرات الموت وتلقينهم الشهادة dadka sakaraadka inaad eegto oo aad dul fadhiisato naftii cagaa ka soo baxaysa miskaa ka soo baxaysa qaarka sare ku hadhay dhakada ka sii boodaysa oo aad tawxiidka u laqinto bal in wax kugu kordho jinaasadooda raacdood ku tukato adoo qabriga eegaya iyo qofkan dhintay oo aan muraadiyo kale iyo wax kale oo inagu badan iska dhaafaya quraanka kariimkooda akhrida siiba aayadaha ka hadlaya geerida wajaa'at sakratul mawt bil haqq dhalika ma kunta minhu tahi inaad eegta cirada iyo cudurka iyo dadka nolosha ka dhacay aafa ku dhacday daraadeed oo isbedelka jirkaaga ku dhacay rifanka iyo lisanka iyo isbedelka ku yimi adiga iyo ummadda kaleba inaad hoos u eegto oo sawiradaadii hore iyo kuwa maanta bal hada aad isu eegto wax ma soo kordhayaan talow mise waa la sii socdaa adawaahiru alkawniyya waxyaabaha inagu dhiiri gelin kara inaynu geerida xusuusanno waxaa ka mid ah adawaahiru alkawniyya waxyaabaha caalamka ka dhacaya duufaano iyo burkaanayaal iyo acaasiir mudamira balaayooyin kala duduwan oo aynu muuqaalkooda imika la soo ururiyo aynu caalamka ku arkayno waxaasoo dhan waxyaabaha ku xusuusin kara weeye waa inaynu xusuusanaa geeridu inay leedahay sakaraad iyo kulayl ka duwanka cudurrada kaloo dhan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam caaisha xaaskiisiyabaa inoo sifaynaysa markuu sii dhimanayay iyadoo sakaraadkiisu aanu la mid ahayn ka faasiqiinta iyo cusaada xanuun ha lahaado laakiin waa takriim wa tadhiir ilaahay baa kor ugu qaadaya nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ku sharfaya waxay leedahay waxa hor yaalay weel biyo ku jiro ayaa nabiga hor yaalay fajacala yudkhilu yadahu fi lmaa'i fayamsaxu biha wajhahu wayaquul mar intuu gacantaa geliyo weelkaa biyaha hortiisa yaalla ayuu wejiga marinayaa wuxuu leeyahy laa ilaaha ila allah ina lilmowti sakaraat
intuu ashaataabaa nebigu wuxuu leeyahy malaggu wuxuu leeyahy kulayl riwaayada bukhaari waxa ay tilmaamaysaa wuxuu leeyahy allaahuma acinnii calaa sakaraati almowt ilaahayow iga fudaydi sakaraadka mowtka waa rasuulullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam waa xanuun adag oo ka duwan xanuunada kale oo dhan watub mima janayta waanta xisu wakun muntabihan qabla aruqaadi atardaa an takuuna rafiiqa qawmi lahum zaadun waanta bigayri zaadi waxaa mudan inaad ka toobad keento ama aynu ka toobad keenno waxaynu gurannay ee dunuuba aynu soo jeednay intaynaan seexan ka hor waa inaynaan raalli ka noqon inaynu raacno innagoo bilaa sahayah dad sahay sita aad buu qofku u qariibsadaa ula yaabaa haddii la yidhaahdo waa la safrayaa oo uu raaco qolo wada sahay sita kaashkii iyo raashinkiiba sita isaguna uu suka yahay oo faramaran yahay dee wuu fikiraa wuxuu idhaha dadkani sahay bay sitaane miyaad martiyaysaa ma waxbay kaa siinayaan adiguna sahay soo qaado sidaasoo kale waa inuu qofku u fikiraa oo dadka saalixiintae sahayda urursanaya markuu arka isna uu sahayda soo diyaarsada ila safar baa wada sugaye lilmowti rusul qablah malaggu wuxuu leeyahay dhambaal wadayaal ama kuwa fariimihiisa sida oo ka soo horeeya bacdul akhbaar baa waxay tilmaamaysaa nebi ambiyada ka mida baa malakulmowtku la hadla wuxuu idhi amaa laka rasuulun tuqadimuhu bayna yadayk malagow ma leedahay qaar fariimahaaga soo qaada oo kaa soo horeeya haa buuhi waan leeyahay min aliclaal waalamraad waalshayb waalhumuum watagyiir alxawaas waaladraaf walsamci waalbashar miyaanaad arag buuhi fariimaha iga soo horreeyaa waxa weeye cilalka isbedelada qofka ku yimaada cudurka cirada humuumtuu qofku xambaarsan yahay xubnihiisa isbedelaya macaanidii iyo atraafta jidhka qaybihiisa kala duwana isbedelaya waxaasoo dhan wax iga soo horreeyo weeye saa daraaddeed baa xadiidkii bukhaari nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam acdara allaahu ilaa mri'in ballaqahu 60 sana ilaahay wuu u cudurdaar dhameeyey qofku cimrigiisa 60 ka dhigay ka aanu 60 ka dhigina ha odhanin weli adigu maad gaadhin wakhtigii lagu cudurdaarayay cudurdaarka cid waliba way haysaa laakiin kaasi wuxuu ku marmarsoodo ma haya buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam ilaa cumrulqaalibkii ummadda inahaa ku urursan cudurdaarka u weyne insaanka la siiye waxa weeye inuu ilaahay rasuul u soo diray qur'aanna u soo dejiyey arrintan aynu ka hadlayna aad u faahfaahiyey wamaa kunnaa mucadibiina xataa nabcatha rasuula cudurdaar bay leeyihin oo ma cadaabaya baa ilaahay uhi ilaa aan rasuul u soo diro rasuulkiina wuu soo diray rabbi aayad kalena waxau uhi wajaa'akum nnadiir nadiir baa idin yimid maxaa idinku caban kii idin digaya wuu idin yimid waa rasuulkii waa qur'aankii waa xumadii waa ciradii intaba waa la yimid waxaasoo dhammi waa rusululmowt idan insaankii marka uu sii dhimanayo dadka qaarkood waxaa ka muuqda calaamaatu xusni alkhitaab inuu qofkan khaatumadiisi ay wanaagsan tahay dadka qaarkoodna waxaa ka muuqanaya su'ul khaatima wanacuudu billaahi minha in khaatumadiisu ay xun tahay saa daraaddeed baa qofka khaatumadiisu ay wanaagsan tahay towxiidka ilaahay waafajinayaa oo carabka uu saaraya qur-aankuu akhriyaya wardigii buu wadaa waxaa laga yaabaa isagoo ama sujuudsan ama salaad ku jira inuu naftu ay ka dhacdo sidii salafku ay ahaan jireen waxaa lagu arkayaa wejigiisoo iftiimaya waxyaabo badan oo bashaa'ira buu leeyahay dadka qaarkood oo khaatumadu ay ka xumaataa waa dadka qaar loo malaynayo waxaa laga yaabaa in laguba kari waayo towxiidka waxaa laga yaabaa ereyadii xumaaya uu ku celcelin jiray inuu halkii ka sii wado uun wejigiisiioo liitay in la arko wax badanoo noocaas kuwaasi ay ka mid yihiin wa akhiiran qafladda aynu ku jirno walaalayaal waynu garanaynaa isuna sheegi mayno masjidkaa marka aynu ka dhaqaaqnana bal waxaad ka fikirtaa mowduucan aynu ka warramayno intuu maskaxdaada ku soo dhacaya reerkaaga saaxiibadaada xafiiskaaga shaqadaada meelaha kale markaynu marayno aakhire iyo ilaahay sortaag iyo geeridii iyo adigoo meelaha jooga ma xusuusataa jeerood halkaa ku xusuusato arrinkani inoo hirgeli maayo allahuma arina alxaqa xaqan warsuqna itibaaca wa arina albaatila baatilan warsuqna ijtinaabah ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم